السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني ودوان كلا مقنين وانكوسو لابتي waxaan rabaa xog muhiim inaan kula wadaaga saaxiib wiil ahow ama gabar ahow xogtaasi waxa ay tahay waa laba arin qof walba oo naga mid ah waxa laga yaabaa qofka inuu la darso waxaan kula wadaagayaa waxa ay tahay inaad mar walba ka feejignaatid qodobka koowaad wuxuu uu yahay aqbalida dulmiga ama aqbalida eedeenta qofku bil aadanka haduu doonayo inuu ka tago waxa uu ku dadaalayaa inuu ku eedeeyo wuxuu u xisaabinayaa qaladaadkaaga markuu u xisaabiyo mar walba wuxuu noqonayaa qof mar walba qaladkaaga ku sheega hadii aad isla markii adigu qof bil aadan aad tahay dareen ayaad leedahay isla markii waxa aad dareemaysaa in wax ay qaldan yihiin ama cabsi ayaa ku galaysa taasoo ah qofka inuu ka tagayo markaas aad waxaad aqbalaysaa dulmiga lagugu tilmaamayo waxa leedahay raali noqo marka ay noqoto waxa aad fashay wadadaasi u sahlayso qofku inuu ku tagi karo iyo inuu ku dhibaateey karo haddaba saysan taas u dhicin qofka hadii uu ku xisaabiyo ama qaladaadkaaga ku sheego qof ku baahan ama qof noloshaada doonay ma aha qof ku xisaabinaya ee waa qof ku dadaalaya inuu ku saxo laakiin qof ku xisaabinaya waxa laga rabaa inaadan hore ka aqbalin qaladaadkaaga aad tiraadi sida aad isoo xisaabisay baan isku soo xisaabinaya hadii ay run yihiin raaligelinteeda diyaar bay noqonaysaa hadaysan ahayn waanu arkaynaa qofkaasi isla markaa hadalka ku tiraadid saacadahaasi wixii ka dambeeya waxa galay walwal baqdin baa galaysa wuxuu isleeyahay qofkaasi armaad macnaha eed beena hadhooti adiga lagu qabsadaa culays ayaa ka degaya si culays uusan ku fuulin mar walba eed lagu qabsado ama lagu eedeeyo ha noqonin qof isla markii ku degdega raaligelinta waqti waqti waa u baahan tahay qofku bil aadanka waa kan qaldama laakiin in qaladkiisa mar walba loo muujiyo ayaa wax dhib ah qodobka labaad waxa ay tahay qofka doonayo inuu kula joogo waxa laga yaabaa inuu kula joogo dan gooniyaha uu kugu leeyahay labayntu ma fiicno qofku bil aadanka ah wax buu dareemaa hadii aad dareentid qofkaani inuu kugu daneysanayo waxa aad ku dadaashaa inaad adigu soo gabagabeeyid barnaamijkaani waayo waqti ayaa kugu socdo dareen ayaad leedahay saasoo ay tahane dareenkaagu haduu u ahaado midaad mar walba la silcaysid ama aad la dhibtoonaysid ama aad la murugoonaysid waxaad u liidanaysaa qaabka aad u muuqatid waxaad u liidanaysaa aqli ahaan xataa u liidanaysaa waa saaxiibka shaahid bizani hadda videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag insha Allah isbuuc walba waxaan kula wadaagayaa video waqti kooban soconaya naftaada iyo shakhsiyadaada muhiim u ah. Assalamu alaykum.